السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعن أو وناكسن أخيات قيمها إيقايا بدن له halkani waa VOS 24 TV aniguna waa Naasir Ilkurde warka ugu dambeeyay ee la saxaanood ka yimaada ayaa wuxuu sheegay in uu qabtay sargaal ka mid ah saraakiisha u dhalatay beesha Warsangeli sargaalkaasi oo diiday kana dhidhiyay dhibaatada lagu hayo dadka lagu tilmaamay ama ragga dagaalamaya ee lagu tilmaamay mujaahidiinta ee dhulbaante isagoona u muujiyay garab istaag sargaalkan oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Jamaal Indhayare isagoo dareeskiisa ku labisan ayuu waxa uu la hadlay Somaliland iyo Muuse Biixi dhanka kale wuxuu fariin u diray shacabka iyo saraakiisha iyo waxgaradka beesha Warsangeli oo isaga ka dhashay sargaalkan oo sheegay in Somaliland waxa ay wado uu yahay wax ka badbadis ah taasna cidnaba aysan raali ka noqonayn gumaadka iyo baabi'inta hantida iyo shacabka ee reer Laascaanood sargaalkan oo si weyn uga hadlay xaaladda ka taagan Laascaanood ayaa sheegay Somaliland waxa ay maanta wado waa waxa ay waday xilligii uu jiray Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad waxa ay diidaneed oo lagu qasbayay ay ayagana doonayaan in ay ku qasbaan midda labaad oo aan aniga oo ah Naasir Ilkurde aan u sheegayo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Ereeda Khaatume State gaar ahaan dadka u dhashay beesha dhulbaante ee loo yaqaano ama Soomaalida ay u bixiyeen fadlan lacag ku shubo dagaalkan wuxuu u daba dheeraaday oo ay Puntland ugu aamustay ama beelaha kale ee daarood ay ugu gambadeen oo si hoose u wada hadlayaan ayaa waxa ay tahay waxa lagu bartay dhulbaante maxay tahay dhulbaante wax lagu bartay dhulbaante inay buuq iyo dagaal sameeyaan markii ay wax doonayaan hadba cid ay ka doonayaan inay buuq ku sameeyaan kadibna inta qarashaad yar la siiyo ay haddana aamusaan marbay Somaliland baan naydaan mar waxay sheegaan in ay yihiin Puntland saasna ay ugu bixiyeen bulshada fadlan lacag ku shubo hadduu idinka go'an yahay in aad maamulka Somaliland si toos ah ugu madax banaanaataan muujiyo oo dareenkiina u muujiya si ay idin soo garab istaagaan walaalaha idinla dhashay ee daarood oo ay si cad ah idinku soo garab istaagaan oo luuq iyo si hoose aysan idinku soo garab istaagin oo si toos ah idin garab istaagaan laakiin haddii dhaqankii hore ee nigula yaqaan ee ahayd fadlan lacag ku shubo hadba waxay aad rabtaa markii nilisiin aad reecaysiin oo calanka meesha ka taagaysa hadii ay tahayne dee waxa meesha qof dekana u gali kara malahan wiili abtigiisa sida aan ognahayne ama ay wada ogyihiin bulshada Soomaaliyeed dhulbaante iyo Warsangeli iyo Isaaq waa dad is dhalay isguursada marka waa hadda ee dhibaatada cad ay aad aragtay u muujiyo walaalihiina daarood in aad Somaliland ka madax banaanaataan in aad u baahan tihiin saddex harti iyo tanaado iyo shanta afarta daarood si toos ah idin soo garab istaagi doonaan laakiin haddartan cid idin garab istaagaysa ee si muuqata idin garab istaagaysa ma jira Warsangeli ugu sokeeya xataa intaanoo maalin hadday ka hadlayaan bixintii aan wada halkaan ayaan ku koobayaa iga tala ah in aad gaarsiisaan walaalaha kaleeto ee aan codkayga gaarin si ay wax un uga fahmaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan VOS 24 TV fadlan follow noo saar siina share garay ligi kuma tigane fikirkaaga waa YouTube hadii aad naga daawanaysidne ee aad ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar kuma tigi ligana waa inoo dhiirigelin